asxaabtii iyo dadkii taabiciinta iyo dadka dambeeyayba iyo culimadii kale ka dambeysayba haddaan iska dhigno dee reer galbeed iyo culimadooda iyo dadka iyaga aqoon-yahanka waa iyo horumarkooda halkaan iska dhigno oon teenna u nimaadno culimadeenna marka tii saxaabada iyo nabiga tusaalaha horen sheegay ayaa markaas noogu filan laakiin markii la yidhaahdo culimadii iyo maaragtay dadka ayaga ka dambeeyey dee waxaa tusaale noogu filan maanta xilliga la joogay ninka diinta yaqaana ama sheekha yaqaana wuxuu ka fikirayaa in kitaabka uu laqmaysto oo kitaabka uu akhriyo wax akhriskiisa ugu weyn u hayaay waa inuu kitaab laqmeeyo sheekhiisa si ugu laqmeeyey uu isaguna u laqmeeyo dabeetana la macneeyo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radiallahu canhu allah ka raali noqde qaala wuxuu yidhi qaala rasuul intaa in laqmadii sidii sheekhu ugu saaray uu u saaro dabeetana uu jiilka ku xiga u gudbiyo jiilkaasina jiilka u gudbiyo iyadoo oonan la soconin يعني إن فكرة وحني أيضا شو إن استنباط إيو وح أسب إيو عروض إيو وح خلاص ورح بحين لسعنين إنه قفكو أنتي يمكن بيو شرح الشيخ يسوق آخرين ونسون كآخرين تبى أنا أفكارتي وشيخ يسوق بيني يوم ونقول بيو المعرتي وحي فهم كيو بيني الشيخ يسوق بيو هالأمورة يا أخي ما مركع علماء ذي نوار وحيا عيان ضد آخر سكود أنت قبل عليه marka leey saxaabada qaar kamid ah suuratu baqara ay dhowr sano ku xifdiyeen waa akhris noocyada ma leynaysa yani wuxuu rabaa inuu macnaha qabto wixiina dhaqan geliyo wixii faham dheer iyo xeel dheer uu fahmo halka inaga laga yaabo inaan maalin ama maalma aanan 5 daqiiqo 6 daqiiqo aan kaga dhaxboodno laga yaabo marka waxay tilmaamaysaa wax akhriskoodu inuunan ahayn kanaan maanta naqaanay laqmaynta ah traditional كان سكر حلي سيدي وأريجي وشيخ استعماله قف كل حاجة وإنتها وصميني وشيخ كل حاجة وصميني نعين مرة علماء ذي إنه حين ضد وحي سكوك ربنا فهم كود إنه كبر لاريه إنه وحلق مية